salaamaya dhammaan shacabka Puntland meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadda ugu horeeya ismada Puntland waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada qaranka sida ee Puntland waxaan salaamayaa dhammaan golayaasha dawladda ee Puntland sida aad la socotaan waxaa maanta ay taariikhdu tahay Talaado 18 Juulaay 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dawladda Puntland taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland uuna qabo dastuurka Puntland sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland in ay ka qayb qaataan amniga dalka lana shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka isla markaasna ka feejignaadaan dagaraha ay maleegayaan shirwadayaasha aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran